caasimadda Sweden Stockholm waxaa maanta lagu qabtay qarannimada Afrika. Munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay safaaradaha Afrikaanka ee ku yaala waddankan Sweden. Africa Day here in Stockholm. It's wonderful also to see that this year's occasion also includes a business forum with opportunities for networking and of course also sharing experiences between our countries and regions. So I come from Trademark Africa and I'll speak to you about the current context and what it means for African trade. But I think what you're all waiting to hear is where are the opportunities. I don't think I know where they are right now. Just organization for innovation, entrepreneurship and sustainable business. جمهورية فدرالك الصومالي كقب جشو Africa Day 2026 Business Forum المركان أجنا وحكومة تلينا نك قحوة بنكة صومالي كوفي وارون ما أنتو حنكسر قيب جلي African Day ومالين آديات ماركينو أفريقيا مهمة جارة سنة كهالمر لقبته وده كان سويدن marka waa maalin aad faa'iido badan u leh qaaradda Afrika waxyaabo badan oo kala duwan laga hadlay hadii noqoto dhinaca entrepreneurship-ka ama dhinaca marketing culture-ka iyo sida labada qaaradood ay isweydaarsan karaan waxyaabaha loo yaqaan partnership oo ku saabsan labadaas qodob oo xagga ganacsiga iyo xagga dhaqanka